halkan maanta munaasabadan quruxda badan waxaan sugu nimid oo ay beelaha reer isugu yimaadeen in aan sida hore u soo dhaweynay aan ku soo dhaweyno maamulka Hirshabelle anaga aan samaysanay gacanteena ku sameynay waa soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu leenahay maamulka Hirshabelle ha soo dhawaado soo dhaweyntaasi waxaan ku raadayay hadda koorna waa sheegnay haddana waan sheegaynaa haddii Ilaahay ogolaado waxaan leenahay soo dhawaado waxa tahay atiin xildhibaanadii aan ku qaybsanay 4.5ka madaxweynayaashii madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii aan soo dooranay golihii wasiirada qaybaha kala duwan Hirshabelle waxaan ku soo dhaweynaynaa si gacan furana waa maamulkii aan samaysanay anaga sameynay xaqiiqdii taas soo dhaweynta markaan ka baxo Hirshabelle qaasatan gobolka Hiiraan waa nabad wax dhibaato ah kama jiraan haddii wax ka jiraan wixii ka jiro gacmo geel jir hoos baa la dhaqan ka dhiganaynaa Soomaalidu dhaqan bay leedahay iyo caado wixii jiro geed hoostiisna waa lagu dhameeyaa si xafiis oo sharci dawliin waa lagu dhameeyaa labadaas baan haddii Ilaahay ku dhameysanaynaa haddii wax naga dhex jiraan laakiin waxaan sheegaynaa adduunyada u sheegaynaa in Hiiraan nabad tahay in doorashada lagu qaban karo madaxweynaha Hirshabelle iyo maamulkiisa waxaan sheegaynaa doorashada waxaan ka rabnaa inay ka dhacdo gobolka Hiiraan